السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا صاحبت قيمة بدني وكحر جنرال آمن تكنولوجي السونق ذنكسن إن شاء الله تعالى ما أنتم حين قاعدتنا عشر كي سداد إنه كبرنيني سوفت وير كالستريتر سوفت وير كان وحكم ديها سوفت وير لو استعمال جرافيك ديزاين سو كلا سوفت وير كان حقوره سوفت وير كلا طول مع فوتوشوب هدي هذا صوب برني كاسو برو سو كلا تنا كان برو هدي هذا لبدا اسكو برتو وحتى هاي فول جرافيك ديزاين عندنا بو باهنيد إن يعني ديزاين كو سميسو adiga ku samaysan doona gacantaada adiga awood u yeelan doona wax kasta u baahantay inaad design garaystid isku soo noqod wanaagsan maantay insha allahu tacaala waxaynu baran doonaa designka hortiina ka muuqdo waa letterhead waa maxay letterhead waa kambaniga warqadda uu isticmaalo si dadka u imaanaya ama customerkiisa ay ugu qortaan xogta ay u baahan yihiin ama cabashada ay qabaan ama dalabka ay u baahan yihiin letterhead waxaa laga rabaa inay ka koobnaato ama ay leedahay kambaniga loogadiisa sidoo kaleeto xogta kambaniga magaciisa iyo designka kambaniga maxay tahay sababtay u isticmaalaan warqadan waxay ka caawinaysaa warqadan meel kasta ay tagto in la ogaado inuu warqadan ay ka socoto ama warqadan ay leedahay ama aad kasoo dukaameysatay ama aad wax kasoo gadatay kambanigan marka kambaniga faa'iido ayay u tahay warqadan meel kasta ay tagto waxaa ku qornaa doono kambaniga designkiisa waxaa la ogaa doonaa warqadan inay ka socoto kambanigaas marka aynu isla design garayno waxaynu soo furi doonaa artboardkan cabirkiisa wuxuu noqon doonaa widthka 2550 halka height uu noqon doono 3330 markii aan kan soo furano designka waxaynu ka bilaabi doonaa qaybtan ugu koreyso marka hore waxaan soo gashi doonaa rectangular markaynu soo gashano kalarkiisana waxaynu ka dhigi doonaa kalar madow ah wax yar kadib dib ayaanu u celin doonaa waxaynu dooran doonaa move tool si aynu dib ugu celino intaas markaynu sameyno waxaynu soo geli doonaa qaybtan waa rectangular laga jaray hal gees markaanu soo gashan ayaanu arki doonaa sida loo jaro marka horeeto waynu soo geli doonaa kalarkan waxaynu qaadan doonaa kalarkan jaalaha ah kadib dib ayaanu celin doonaa si aad marka hal dhinac ugu jarto qaybtan si aad halkaas dhinac ugu jarto waa inaad soo doorato wax lagu magacaabo direct selection tool markaad soo dooratid halkaas gees keli ku dheh keli marka ku dhahdid halkaas gees keli ayaa active ku ahaa doono kadib dib ayaad u celin doontaa intaas markaynu sameyno isla waxaynu soo gashan doonaa isla rectangular kaleeto waynu ku daragaray doonaa kii hore kan waa ka yaryahay wax yar ayaanu sizekiisa yaray doonaa kadib direct selection tool soo dooro halkaas gees keli ku dheh keliga marka ku dhahdid soo jeedin geeskan active inta kale active maahan geeskaas qabo marka wax yar dib u celi sidoo kale taasigana wax yar waxaa moodaa inuu hoos nagu soo jiro marka kor u celi ama intaa highlight la saar hal mar sidoo kaleetana dib u celi waxaan leeyahay doonaa artboardka ama warqadda aynu isticmaalayno si uu u noqdo mid fit ah markaynu sameyno intaas markaynu sameyno waxaynu kusoo darsan doonaa loogadan waa loogo uu kambaniga leeyahay waaynu design garan doonaa si aad u fahantid marka hore waxaynu soo dooran doonaa oonu soo gashan doonaa polygonal markaan soo gashano geeska ayaan keli ku dhihi doonaa cabirka hadduu 3 ku yahay ama 5 ku yahay waxaad ka dhigtaa 6 gees ayaan u baahannahay kadib 6da gees markuu noo sameeyo wax yar waanu soo dhaweyn doonaa move tool dooro kadib adigu shift la haayo waxaad ku samaysaa drag wax yar waxaynu geysan doonaa geeskaas cabirkiisana wax yar waanu yareyn doonaa markaan soo gashano polygonalka waxaanu soo gashan doonaa magacan kaleeto magacan waa type tool wax kaleeto maahan farta ayaanu soo weyni doonaa control shift plus delete anagoo isticmaalayno kadib waxaanu dhihi doonaa ladan markaanu dhahno fartan waynu ka bedeli doonaa waxaynu ka dhigi doonaa times new roma waa farta fararka ugu fiican ayay kamid tahay kadib waynu daraagarin doonaa aniga oona shift iyo waxba aan haynin wax yar dib ayaanu celi doonaa intaas markaynu geyno kalarkeedana waxaynu ka dhigi doonaa kalar buluug ah highlight saar si aad kalar ku bedesho kadib kalar soo dooro markaynu sameyno waxaa keliya inoo dhiman hadda waxa waaye qaybtan waa gmailkii waan ka yaran doonaa tan waxaan dhihi doonaa www.ladan.com waa meeshii websiteka nagala soo xiriiri lahaa intaas markaynu sameyno isla kalarkan iyadana waxaynu ka dhigi doonaa kalarkan jaalaha ah kadib wax yar waaynu yareyn doonaa intaas markaynu sameyno hal mar highlight isla saaran doonaa highlight markaan isla saarno waxaynu awood leeyahay inaan hal mar isla control karno isla yareyn karno markii aynu intaas sameyno waxaynu kusoo darsan doonaa sida ujeedii baa qaybta locationkan si aad ugu soo darsato waqtigan lama doono hore ayaan u baran si loogu soo darsato waynu soo koobi garaysan doonaa locationka markaan soo koobi garaysano inta keensano
locationka waxba kama koobna keliya waa text iyo sidoo kaleeto qaybta lagu magacaabo icon. Icon waxaa soo dooran doontaa si aad icon u isdiristid. Inta ayaanu keli ku dhihi doonaa hadda farceeda ayaa noo qormayso. Fartaan u baahan waxaa u baahanaa icon. Icon markaa u baahana waxaan soo bedeli doonaa farta characterkeeda waxaan ka dhigi doonaa typicon. Typicon softwareka waa software loo isticmaalo inuu kusoo geliyo iconka. Hadda waxaan u baahanahay locationkaas. Locationkaas map ayaa loo yaqaanaa m ayaa loo soo gaabiyaa. Sidoo kaleeto haddii aan u baahanahay mid kaleetana asiga aynu ku garisi doonaa. waynu bedeli doonaa waxaynu ka dhigi doonaa qaybtan keliya n oo ah number loo soo gaabiyey. Sidoo kaleeto kan haddaan u baahana inaan bedelno oo gmail ka dhigno waxaa loo soo gaabiyaa email la qori doonaa. haddii aadan softwarekan haysanin softwarekan waxaa soo dhigi bal telegramka waa kana qaybtan ayaad soo degsi doontaa telegramka ayaad keli doontaa telegramkan wuxuu yaalaa descriptionka videogan waana kasii socon doonaa waxaanu gudbi doonaa qaybtan xigto waxaan dhihi doonaa qofkan wax qoraay iyo qofku ku soo haddana aan isticmaali doonaa waxaan dhihi doonaa kadib from qof uu ka socoyo waxaan dhihi doonaa fromkan dhana laba dhibic ayaanu sii doonaa bas markaynu sameyno isla kan ayaanu guulgareysan doonaa inta ayaanu geyi doonaa sidoo kaleetana kan waynu guulgareysan doonaa inta ayanu geyi doonaa kanna waynu guulgareysan doonaa inta ayanu geyi doonaa waxaan u fududeynaa waxa sida waqti ugu dheeraanin waxaan dhihi doonaa kadib qofka uu ku socdo waxa waaye Yahye Ahmed Aamin qof uu ku socdana inta magaciisa ayaa geli doontaa waxaad dhihi doontaa magaca haddii Yahye la iska soo celi doonaa Ahmed Aamin waa magacayga qaybtan waxaan dhihi doonaa tu qof uu ku socdo tu markaan dhahno hal mar haylaad ayaynu isla saari doonaa waanu yarin doonaa meeshii uu inoogu wada fadhiisay sida ujeediinba uma baahin markii uu inoogu wada fadhiisay markaan sameyno waxaynu ku darsan doonaa textigan warqadda sida ujeediinba waxay ka u design garaysan tahay sida tan qaybtan hoosena waanu soo gashi doonaa qaybta hoose soo gashan waxaynu tigi doonaa rectangular markaanu soo gashano haddii uu software sida kaa noqdo yacni kor kaaga baxo hataa wataa control 0 shaashada ayuu fit kaaga dhigi doonaa kadib waxaynu soo gashi doonaa isla qaybtan xigta oo ah kalarkan jaalaha ah kalarka jaalaha si aynu soo gashano horta marka hore meel kaliya ayaan ku dhihi doonaa waxaynu soo gashi doonaa si aan kalarka jaalaha usoo gashano rectangular waynu ku daraagelin doonaa intaas markaynu sameyno kalarkeeda waxaynu ka dhigi doonaa kalar jaalaha ah si aynu hal gees ugu yarayno waxaynu soo dooran doonaa direct selection tool markaad tagtid geeskaas keli ku dheh hal active markuu noqdo geeskaas kadib waxaad ku samaysaa drag intaad u baahan tahay ka dhigo mar kaleetana waxaad soo gashataa rectangular soo gasho mar kaleeto rectangular markaad soo gashatid halkaas gees hadda ma ka yaray karno haddii aynu qabano asiga ayaanu wada yaraa doono si aan hal gees ugu yarayno waxaan soo gashi doonaa direct selection tool geeskaas keli ku dheh sidoo kaleetana intuu yaray hadda waxaynu design garaynay si complete ah letterhead waxaan dhahnaa waxay ka kooban tahay waa kambaniga design-kiisa mar koowaad design-ka waa asiga qaadanayo sidoo kaleeto kambaniga loogadiisa iyo magaciisa meesha uu ku yaalo nambarkiisa iyo gmailkiisa qofka wax diraayo hodhow meesha waa ku bannaan tahay from iyo to qofka ku socdo kadib waxaan soo gashi doonaa qoraalkii qofka qoraalkan waxaynu ka keeni doonaa marka horeeto ma qori doono waqti aynu ka dhigi doono waxaynu keeni doonaa word soo kacas kadib hadda equal rand markaad dhahdid bracket furka xir equal dheh qoraalkan aynu soo goobi karaysan doonaa waa si fudud oo qoraal aad ku heli kartid kadib si aynu qoraalkan ugu dhigno qaybtan hadda wuxuu ku jiraa sida ujeediin wax lagu magacaabo area type tool si aynu u gashano marka horeeto waa inaan rectangular soo gashano rectangular markaanu soo gashano waynu ku daraagelin doonaa intaynu u baahannahay inuu qoraal ku fadhiisto bas markaanu sameyno waxaynu soo dooran doonaa area type tool markuu soo doorano inta ayaan ku dhihi doonaa click qoraalka markuu inoo soo galo kadib waxaan dhihi doonaa qoraalka aynu wadanay control v qoraalka waan iska yaran doonaa control shift minus saas ayaanu ka dhigi doonaa qoraalka doonayno inuu ka weynaado marka intaan sameyno qoraalka waxay dib aynu celi doonaa waxaa keliya inaga dhimin wax waaye qaybtan lagu magacaabo signature saxiixa qofka signature sidaas u gashid marka horeeto rectangular soo gasho qaybtan intaa ku daraagarayso kalarkiisana madow ha iska ahaado ama kalar jaalaha labada mid ka siibo intaas markaynu sameyno signature-ka qofka waxaa laga rabaa inuu inta ku dul saxiixo si uu qofka u fahmo type tool soo dooro waxaa dhahdaa qaybtan waxaa laga rabaa signature oo saxiixa waxaan dhihi doonaa signature waa iska tusaale hadda design-kaas hore kuma darsano balse hadda ayuu nagu soo dhacday inaan ku darno qaybta marka intuu qofku ku dul saxiixi doonaa saxiixa intaa laga rabaa si uu marka qofkan u saxiixo ama sidoo kale waxaa samaysaa qaybtan signature inta geyso kan kaleetana inta keenso qofka saxiixiisa inta ha noogu qoriyo design-ka adiga ayaa design garaysan doona sidaa u baahan tahay saxiixa qofka waxaynu ka rabnaa marka halkan
si uu nagu qurxaato waxaan sii geli doonaa 2 dhibcood kadib kan ayaan waxaynu heli doonaa dib kan kaleetana waxaa yidhahdaan saan soo dhihi doonaa saxiixa qofka marka meeshan ayaa laga rabaa saxiixa qof markuu saxiixo waxaynu soo gashi doonaa hadda saxiix yar oo qoraal ah waxaynu ku saxiixi doonaa saalamiin oo kaleeto kadib highlight ayaynu saari doonaa saxiixa badanaa waxaa la isticmaalaa fartan fartan waxay ka dhigaysaa qaab saxiixa camal fartan waxaa lagu magacaabaa edwardin script itc waynu soo koobgaraysan doonaa intaan imaan doonaa tan ayaan waxaan dhihi doonaa highlight kadib fartaas times no roma ayaan bedeli doonaa waxaan ka dhigi doonaa fartan markaanu sameyno wax yar waynu wayno doonaa oo keliya qoraalkii hadda wuxuu inoo noqday far saxiix camal sidaa ujeediin ba hadda waxaa si complete aan u design gareynay letterhead weliba si design aad u qurux badan oo professional ah design ka qurxan waad samayn kartaa waxaad isku daydaa keliya inaad sameysid markastoo practice-kaada markuu bato waxaa badan doonto xirfadaada skill-kaada oo aad u leedahay software-kan waxaa jirta oraha ingiriis oo dhahayso more practice makes the perfect practice badan ku celcelid wuxuu kaa dhigi doonaa inaad perfect aad ku noqotid software-kan marka insha allahu tacaala inta ayaan kusoo gabagabay doonaa fadlan haddaa inta nala soo gaarto nagu cusubtaa waxaan kaa codsanaya inaad subscribe noo saarto channelkan waa aamin technology waxaad ka heli kartaa cashiro badan sidoo kaleeto haddaa hore gudaha usii geshid waxaad ka heli kartaa koorsooyin ay kamid tahay illustrator photoshop html iyo cs iyo sidoo kaleeto database anigoon la isticmaalin luqada loo magacaabo inta ayaan kusoo gabagabay doonaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh